ها مركا موضوع إنه دورنا يرنتي وموضوع هذا أو attitudinal change قلبك ابن آدمك أينو الله سبحانه أينو كهل دون مركا قلبك مركا لليه هي قلبك ابن آدمك قوش نوحي كتم هذا قلبك ابن آدمك قول درد نوحي كتم هذا قلبك ابن آدم إف هي آخرة واحد لقول لي بنا وقلبك واحد وجه واحد هذا هان واحد كل شبطه بعد كسر شبطه قلبك سوغان يهنيال بدن بامري قاربايدي Soomaalidu maxay guul la gaari lahayd wuxuu wax kale ku sidata halkay waana gelin that is the part qaybta aynu rabnay inaynu maanta ka hadalno waa qaybta weyn ta kale wuxuu yiri cirka nimanka sahanka u diray ee caadka ka hayaamay cadceed iyo dayaxa dawladahan caawa kala sheegtay caynkeena soo wada mare iyo caado liiti ah ee carfi wuxuu ka muuqdaa shacbiga caafimaad qabku marka in terms of what waa qalbigu weyn qaybtaas way qaybta ay sirta dhani ku jirta dhan kale diiniyan marka aynu ka dayno qaybta qalbigu waxa la yahay xadiiskii marka la ilaaha illa allah safad la saaro ee cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysana safad la saaro la ilaaha illa allah waa ka miisaan badan sooma qalbigu waa shayga miisaanka leh shayga qaaday way marka waa qiyaasi kartaa imaginary shayga balladkiisu iyo mugiisu inta uu leeyahay waa qiyaasi kartaa xadiiskii kale waxa uu ahaa waslad waxa jirta jirka kamid ah oo haday wasladaasi xumaado dhammaan jirku xumaado haday wasladaasi hagaagtana dhammaan jirku hagaago waa in terms of religion marka aynu ka hadlo wasladaasi waa maxay innahu qalbiga weeyaan marka cidii guul doonaysay in this life of the world adduunyadan hadaa doonayso in aad gaadho guul cid walba inay qalbigeeda dib ugu noqoto inay cid kale fakarta ku fiicdama guushu waxa ay ku jirtaa gudaheena we have a bank baynu leenahay ilaahay ina siiyay ka rabnaa ibn aadam waa qaybta ay ku jirto xawayaanka dhan waxaynu kaga duwanahay laba shay inta aan ogahay amba inta aan qoraal ku arkay luqadda iyo qalbigaynu ku kala duwana dameerku timo uu leeyahay ana timaan leh cidii uu leeyahay ana cidii aan leh inta kale waynu wadaagnaa laakiin waxa ay labada shay ee aynaan wadaagin ay ka rabnaa ibn aadam ku jirtaay waa luqadda iyo qalbiga ibn aadam allamahu albayan suurada ar-rahmaan bay ku jirtaa inuu ilaahay noogu galad sheeganayo luqadda hadiyadaha uu ina siiyay in cid kale la siinin inay tahay qalbigu waa kamid marka maanta waxaynu ka hadli doonaa qaybta qalbiga ayaynu ka hadli doonaa إن شاء الله تعالى الرسالة اللي سميه يان بعد دونا أنت هدي عن هردعهان وأديكسدو كهر أنت ينام بلابن أنت ينام بلابن سومالي أهان مركا يندب إنه يسوق صار نقول إنه تينا كهذا العاو ما هن أهان هل كإنه تاجنا مس حقيقة وسدا أيتها هن أهان هل كإنه تاجنا هي حقيقة أهان هل كإنه تاجنا إلى بدو يقلدوين Soomaali waxay soo haysataan inaynu dadka ka wanaagsanahay dadka kala ka fiicanahay inagu ka dhaqan wanaagsanahay runtii ma xumayn kalsooni la iska qabay laakiin adduunyada kaalintaynu kaga jira xaqiiqatan marka aynu u kuur gallo Ethiopia waxay ka mid tahay wadamada adduunka ugu saboolsan waayo waxa marxaati ah wadamada adduunka ugu saboolsan ee Ethiopia ka mid tahay qorshaheedu waxa uu yahay in ay Ethiopia ka mid noqoto wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaad ka yahay mar haddii dhexdhexaad loo socdo waxa aynu joognaa meel dhexdhexaad ka hooseysa sama Ethiopia oo adduunka ugu saboolsan laakiin da ahaan wax ilaahay abuuray cirka iyo dhulka uun ba ka daaway xaqiiqatan markaynu ka wada hadlo Ethiopia oo adduunka ugu saboolsan ayaa inaga ina tiraahdaa deegaamada dib u dhacay gargaarka gaarka u baahan cid inaga dambaysan horta adduunyo ahaan kaalinta aynu kaga jirnay waa taa badiidan bayad anu ma oran waa fact taagan that's the solid evidence soo ma jirto soo deegaamada dib u dhacay leena mayda that's it hal waliba halkays dhigtaa lagu qalaa marka waxa la yiri hanka la isku dhaafay dadku haybta guud siman hoodiya nasiib waxa ku la dhidid la horsha fursadu haday ku timaado oo aad ka faa'iideysan weydo iyo haday maqan tahay waa isku mid anigu maanta waa noolahay هنول نول هنول الأهان هدانا عدنا كو أنفعين
haddaan dhinto cidina waxay noqon mayso sooma haade anoo nool ba cidba maanan ficin waayo markaan dhinto cid waxay noqon mayso marka maantaynu nool lahay ee haddaynu cimrigeenna ku lumino ree hebel iyo kanaan kursi helin iyo cadka reerkaa la qaadiyey iyo maxay baa la yeelay iyo kanaa soo durkay iyo waa kii aan ka adkaa iyo asal maaha iyo that is something which is horrible waxyaabaha dhibaatada u weyn inagu hayaa waa waxaas waa qalbigeena waxa ku jira iyun baynu ugaarsanayna markaas adduunyada kale marka aynu tusaaleyno adduunyada kale da ahaan waa dalal waaweyn in la yidhaha laga yaabo wadamada adduunka ugu da'da waaweyn dhammaantood waa sabool intooda ugu badan masar baa ka mid a greek baa ka mid a ethiopia ka mid a dalalkaasoo dhan they have more than 2000 of age laakiin waa sabool dhanka kale marka aynu dayno wadamada australia iyo canada iyo new zealand 160 sano weeyaan in terms of age marka da ahaan la eego laakiin they are rich country waa wadamo horumar oromada ku maahmaahda abbaafi horiin wal fakaada nin iyo beertii way isu eegi beertayda hadduu cambe babaay muus ka baxo waa aniga hadduu harama ka baxna waa aniga dal iyo dadkii way isu eegi innagu waxaynu eegnahay deegaankeena innagii deegaankeena waynu isu eegnahay wuxuu dadkeenu yahay yalaan baa jirta maxay baa jirta haddaynu fiicannahay magaalada jigjigadee 400 oo dameer uma dhaamiyeen runta marka laga hadlo soma ri hadday daba leedahay cawladeeday ku asuri lahayd ficil guduhu ka guushu waxa ay ka timaadaa qalbiga gudaha ay ka timaadaa gudaha wasta ka tashanafa wajah baa la dhilay horan gudahaagu haddii uu guul daraysto gacmahaaga lagu habo guul ma gaadhaan internally guushu waxa ay ka timaadaa waa gudaha weyn dhanka kale marka aynu dayno wadamada horumaray iyo wadamadan horumarin availability of the natural resource khayraad dabiiciya bay leeyihiin in la yidhaha laga yaabo khayraad dabiiciya waddanka Japan 80% waa buuro laakiin waa waddanka saddexaad amba afraad dhaqaale ahaan marka la dayo in terms of economy Japan 20% ee dhulka ah waxa maalgelin lagu sameeyaa waa in ay dadku degan yahay iyo warshadaha ku yaala xataa haddaad istiraha beer qodo amba xoolo dhaqo agriculture amba cattle raising xoolo dhaqo haddaad istiraha meel dhul ma jiro waxba ma jiro la marka maxaa qura ay Japan dadkeeda ku samaysaa maalgelin mental investment bay samaysaa projectorkan inuu wax ku dhigayno laptopkan gaariyadan inoo wada taagan dhammaan Japan baa samaysaa waa la noolaan karaa haddii maskaxda adduunyada wax la maalgeliyo waxa ugu wanaagsan qalbiga ibn aadanka iyo maal iyo maskaxda ibn aadanka oo la maalgeliyo ayaa ugu hanti wanaagsan ta kale it is not a country it is a floating factory waa warshad biyaha dulhay haabaysa ee ma aha dal Japan dhanka kale Switzerland marka aday Switzerland waxa la yiraahdaa 8 bilood waxa saaran baraf 4 bilood ayuu barafkaas ka dhalaalaa 4 bilood bay soo saartaa dalkeeda dhan waxa uu cuni lahaa dalka dhan waxa uu cuni lahaa oo ay waliba dheer tahay qamadada inaga la inoo soo diray that is something which is horrible mala deegaankeena 10 meelood marka loo qaybiyo meel baa ka weyn Switzerland in terms of geography inta ay leedahay balad ahaan waa waddanka uu ku yaalo World Bank dhaqaalaha dhan ee dunida waa dalalka maamula buu ka mid yahay laakiin maxaa mental investment adduunyada waxa la isugu faanayaa waa cudud shaqaale damqashada waxyaabaha kugu haya waxa ka mid ah sanadii 2012 boqolkiiba 98 ardaydii 12aadka dawlad deegaanadka Soomaaliya way dhacday ma ay saacadta waxay maleeyeen 98 way dhacday marka maxaynu doonaynaa in aynu kula tartanno dadka qayrkeena inay tahay that is something which means waxyaabaha in laga damqado amba haddaynu islaynayno xitaa inaynu isku layna taasa ah weligay ma arko Soomaaliya ma sha Allah shay wanaagsan Soomaalidu markay aragto amba way cayda amba way habaarta geel qurux badan buu arkay kud alla ku gal ari fiican buu arkay xiradaada alla bi gabar qurux badan buu arkay na alla ku yaal xagga jannada ka soo we are negative community nacam weligay ma arko Soomaaliya ma sha Allah nin fiican baan yu arkay soo dhan ala ninkaas waa nin wanaagsan wallahi waa runtahay reerkaba wax laga dilay ninkaas ku jira dilka ma hada dhig
we are in that kind of community horta dadka aynu ku dhex noolahay waa dadka sidaas